gobolka Hawd maanta laga bilaabay odayaashii madaxdii deegaanka oo ila joogta gudoomiye ku-xigeenkii deegaanka xildhibaan Mawlid xogayihii iyo xildhibaanada dhammaan sida fiican ay soo dhaweeyeen anigoo ku hadlayo magacayga iyo magaca ururka Bisha Cas si weyn oo ballaaran oo kaliya laab leh ayaan u salaamaya waan u mahad celinayaa gudoomiyaha iyo xildhibaanadaba waxaan jecelahay meelaha maanta aanu biyaha ka dhaaminayno baabuurta taagan ay gaarayso inaan xaggan ka sheego una cadeeyo tirada biyaha gobolkan Hawd aan u wadno tirada biyaha maanta Bisha Cas oo kaashanaysa ururka Bisha Cas ama balan qeyrta cas ee German Red Cross وعاونada ay ka heshay ee deegaamada ka tirsan Hawd caasimadiisuna tahay Balagubadle waxa loo qoondeeyay waa 10 booyadood ayaan jecelahay inaan ku wareejiyo maamulka deegaanka anaguna waxaanu jecelnahay gaadiidleyda iyo shaqaalaha iyagu si wada jira iyagoo iska wax u qabso iyo mutadawacnimo maanta nagula shaqeynaya in hawshaasi si degdega u galaan una bilaabaan biyo dhaamiska waxaan jecelahay kulli wadna soo dhaweyseen intii maanta maalintii ugu horeysay horta biyo lagu qaybiyo Balagubadle waa noo kow waayo waxa weeye Bisha Cas waxay ka soo gashay taariikhda kooba ka gashay wax biyo magaaladan iyo deegaanka soo gaarsiiya oo wax noo keena Bisha Cas baan ugu horeysay ha yaraadaan ha badnaadaan waxa weeye marka wax ku yimaadaan cidda ku sida mahadnaq bay leedahay horta marka hore waan ugu mahadnaqaynaa baahida iyo abaaraha ka jira wadankana wax gurmado aanu helay oo aan Bisha Cas ahayn maba jiraan insha Allah waxaanu iyadana ka rajaynaynaa inay inta dadaal ay ku sii kordhiso oo inooga sii badisaba walahaan iyo degmo ahaanba loona qaybin doono tuulayaasha hoos yimaada gobolka iyo degmadaba aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa markuu ceelka ololaya la ogaada qiimaha ay biyo leeyihiin dhulka walba abaaraysanay biyo la'aan baa ka jirta waxaan uga mahad celinaynaa Bisha Cas inay 10 booyadood ugu horeeyay soo gaarsiiso maanta waana ku mahadsantiin